جمالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد عشرات هنقبلنا برنامج كاكسسكا. عشر كانوا قلنا بمركز نسوق وجبيني فهم كاني سيلز إنفويسكا وهفهم كأنه مركز نطلع حكي إبن إنه استعمال الهين ما أنت إن شاء الله وحين سمعنا إن فهم كأنه نطلع مركز إنه وحكسو يبسين إنه استعمال الهين كاسوحون نقنا يا وسيدا كان نقنا يا كلي أو حكوا كل دونانا يا halku kan customer ka yahay ka vendor ka noqonaya halku kan price ku jiro agaabta price ka qof ka siinaysid ka costiga ku jira intii adiga laga soo siiyay intuu kugu joogay halku quanta solga kan yahay quanta receiver ku noqonayo halkii qofka intaad ka iibsataan ku qor lahayd inta aad soo iibsanayso maxaan ku qoraysaa inta kalena waa isku mid oo waxay ku kala duwan yihiin male bas marka waxay nagu soo celinaynaa marka hadda cashiraantii hore soo daawata ee kan ku soo sameynay maanta waad samayn karaysaa inta aan sheegay baad ka bedelaysaa dariiqadii aan soo marran baad maraysaa laakiin waxay nagu soo celinaynaa haddii waxaad fahmi weyday kuwii hore ku jiro ama jadiid aad iminka nagu soo biirtay intaaba insha allah sidaan kaa soo sameynay baad yaan ku celin doonaa oo faa'iido ugu noqon doontaa haddii aadan cashiraantii hore soo daawan okay marka si aynu soo sameyno waxaynu tegaynaa create baan tegaynaa kadibna waxaan tegaynaa form user baan tegaynaa form user markaan tagno waxaan soo dooranaynaa purchase invoice table-ka yaan tegaynaa kadibna intan waan soo wada gelinaynaa intan dhammaantood waan soo wada xareynaynaa waa order number-ka iyo reference number-ka iyo mother ID-ga iyo date-ka iyo notice-ka intaba hal mar baan xareynaynaa kadibna waxaan tegaynaa vendor-iskaan tegaynaa kadib halkan vendor-ka ka dambaysa vendor ID halka ka dambaysa waxaan ku qoranaynaa city-gii iyo address-kii iyo mobile phone-kii inta aan qofka uga baahanahay vendor-keena qofka aynu wax ka soo iibsanayno supplier-keena qofkeena waa inuu wax ka soo iibsanayno inta uga baahnaan lahayd marka aynu invoice-ka sameynayno oo qofka magaciisii ID-gan isaga magaciisa aan u bedeli doonaa sidaynu cashiraantii hore soo dhiganay iyo meesha uu joogo iyo address-kiisa iyo telefoonkiisa okay marka inta markaad samayso next baad leedahay marka labadan bay vendor iyo bay purchase invoice inay tahay ku hubso marka next kadibna magaca waxaan u bixinaynaa purchase invoice table form baan u bixinaynaa baan ku darinaa bas marka waxaan leenahay finish okay marka kaasaa waan ku dhammaynay kaas sidaa baan ku sameynay haddaan design view tago sidaan hore kuugu soo sheegay xagga design-ka iminka wax fara badan baad ka qaban karaysaa oo intaa macallin baad ku tahay laakiin keliya waxaan sameynaynaa halkan baynu si aan subform-keena ugu sameynayno meeshan space-kan intaan ka qaadaynaa inta baynu saa uga qaadaynaa kadib xagga maan dhigaynaa si aan space u helo okay laakiin xagga design-ka maanta waxba kama bedeleyno adigaan kuu dhaafi markaan kasaa u samaysano safe baan leenahay kamaas ka xidhinaa marka haddaan foomkeena marka saa kugu tuso sidaa buu yahay oo xaggan adaa iska tartiibsanaya order numberka halka intaa ku daysatid vendor ID-gan halkaa sara mari city-ga ku xijisii kadibna waxaad ku xijisiisaa address-ka ku xijisii kadibna waxaad ku xijisiisaa mobile phone ku xijisii intan kalena markaa iska tartiibsaado cashiraantan dhammaantood waxaynu ku soo qaadanay cashiraantii horena ku soo qaadanay marka intaa waad fahansan tahay maanta waxba waqti kuma luminayno markaa maxaan sameynay markaan table-kii saa usoo sameynay kii kale formkii markaan saa usoo sameynay formkii waxaan sameynaynaa subformkii baan sameynaynaa marka waxaan leenahay halkii baan tegaynaa iminkana form user-tii kadibna maxaan imanaynaa purchase invoice subtable yaan imanaynaa oo kan hoosa qaybtii subformka noo noqon lahayd kadibna kan sida u dhan yahay baanu iminkana soo wala xareysanaynaa marka saa usoo wala xareysato itemka intaad saa u joogsato waxaad tagtaa itemskii tag okay marka itemka maxaan uga baahannahay itemka neebkiisa uma baahno halka maynu kasoo saari doonaa iska soo dhaaf waxaynu u baahannahay description-kiisa iyo costiga iminkaas ku soo qaadanayna price-kaas ku soo qaadanayna price-ku waa taynu dadka inuu ka siinayn laakiin maanta waxaanu sameynaynaa formkii dadka markaynu wax ka soo iibsanayno marka waxaad soo qaadanaysaa costigaad soo qaadanaysaa price waad ka imanaysaa okay marka waxaad leedahay tan ay ugu dar quanta available iyadana iska soo qaado okay marka next
sidii tii hore oo kale bay items ka dhigeen pay purchase invoice subtable ka dhig marka next dheh kadibna tan data sheet ka dhig next dheh kadibna waxaan bixinaa subtable form baan bixinaa okay marka finish okay marka saan u sameynay waa iska xidhaysaa kan marka keeni hore ku laamayna maanta waxaynu wax badan يعني wax badan aad uma sii sharaxayna sababtoo tahay cashiraantani waa revision bay noo tahay waan soo qaadanay waxaan rabaa okay marka keeni ku laabano halkan taas oo yar banaysano waxaan leenahay noogu soo dar subformkii okay marka subformka keeba doonaysaa waxaan doonaynaa aan leenahay purchase invoice subtable form kaaban doonaynaa marka waxaan leenahay next kadibna waxaan leenahay define my own baan leenahay order ID-ga iyo waxa isku mid ah iyo invoice ID-ga city-ga iyo waxa isku mid ah inta isku mid ka ahayd baad markaa yaad gelinaysaa ma city kuma jirto marka waxaan order ID address-ka vendor ID-ga iyo vendor ID-ga waa isku mid waxa soo haray reference number-ka iyo reference number-ka waa isku mid okay marka maxaa noo soo haray saddex markaan isku mid ka dhigno waxaa noo soo haray date-kii iyo notice-kii bas date-kii iyo notice-ka xaggii kale ka waxayn doonaa marka next dheh labadan table labadan form baan isku xidhaynaa sub table-ka iyo form iyo main sub form-ka iyo main form-kan isku xidhaynaa marka inta field iskaga mid yihiin yaad u sheegaysaa in inta iskaga mid yihiin marka next dheh finish dha marka inta taa u dhamayso intii kale uu ka tagay isagu iyo mana wali inuu isugu xidhanaa inagu marka inta saa isugu xidho intii uu ka tagay baan isku xidhanaa inagu marka data inteedii mid halkan waxaad tidhaahdaa semicolon dheh kadib waxaad tidhaahdaa date colonkan magacuu ka mid yahay marka semicolon dheh notes dhehkan okay siday u qoran yihiin u qor marka date-ku waa kan notes-kuna waa kan xaggan labaduba xag iyo xag way noogu jira markaan soo koobiyeynana tan sidaan soo koobiyeynana copy dheh kadibna xag basti kara marka okay marka intaas samayso save baan leenahay marka formkeenu siduu noqdaan eegno formkeenu sidaa u noqdo okay laakiin waxay iskaga mid yihiin oo dhan sidii caadiga ahayd yeenu soo hide garaynaynaa awinka visible bay yihiin laakiin invisible baan ka dhigaynaa markaan hoos u dhigo suu meesha kugu banayo kana iska masax waa magaciisi okay kana iska masax intana iska xidh marka intaas samayso waxaan sameynaa invoice-ka iyo reference number-ka iyo vendor ID-ga saddex iyo date-ka iyo notice-ka intanba xagga sare way ku jirtaa xagga hoosena way ku jirtaa marka waan iska masaxaynaa waan iska hide garaynaynaa saddexdan horta hide halkaan sidan u yar banayso aad u aragto visible no baan ka dhigaynaa labadana kusoo laabo iyagana no waxaad tidhahdaa noodha iyagana waa shanta iskaga mid yihiin baan iska khabeynay sababtoo tahay xagganay noogu qoran tahay uma baahnin iminka okay marka haddaan formkeena saa u eego kuwan baynu nidhi saddexdan hide okay labadii kale hadhay kuwan notiskiisna xagga ugu jira labadanna waxaan leenahay naga hide kara iyagana okay marka item-kii description-kii cost-kii quantity available iyo quantity received intaad qofka kasoo iibsatay maxaa noo dhiman amount-gii oo amount-gu ahaa qofka inta habeen ka iibsanay iyo lacagta uu naga siiyay intuu suuqan dhufto iminka lacagtan laga rabo inuu noo sheego iyo totalkii invoice-koo dhammaystiran ama order-ka noo dhammaystiran totalkiisii intaaba noo dhiman iyo quantity on hand marka intaaba sida loo sameeyo soo baranay yes dheh waxaa baan wada save garaynaynaa kadib xaggan hoose intaad imatid inta xaggan hoose imatid soo yar weynaysatid waxaan soo qaadanaysaa kan soo qaado kadibna xaggan sidan u dhig
waxaan ku qoraa kan amount waan ku qoranaa. Okay, halkan intaad imato oo daytada imato xaggan source-giisa waxaan ka dhigaynaa waa quantity received cost-ga oo lagu dhuftay quantity received inta agaabta soo iibsatay inta laga siiyo la isku dhuftay amount u noqonaysa. Okay, haddaan markaas u eegno okay marka xaggaa noo imata iminka haddaan wan idhaahdo un xaggan geliyo haddaan geliyo cost-ga aan idhaahdo wuxuu igu joogaa 30 inta aan xabeen soo iibsaday inaan ka dhigo 3 xabo wuxuu sameeyay wuxuu isugu ka dhufanayaa 3 xabo iyo intii laga sii isugu ka dhufanaya. Okay, marka maxaa kaloo ku soo daraa waxaan kaloo ku soo daraynaa quantity on hand marka waxay noqonaysaa quantity available oo lagu daray yani inta imika noo taala oo lagu daray quantity received inta xabbe ay imika na loo keenay ee soo iibsanay yaa lagu daray inta noo sii taale. marka quantity on hand waxay noqonaysaa labadan oo la isku daray noqonaysaa. Okay, marka iyadana waxa u samaysanaysaa sida soo qaado kadib xagga waxaad u bixinaysaa quantity on hand. Okay, quantity on hand xagga marka maxaan ka dhigaynaa source-giisu muxuu noqonayaa quantity available oo lagu daray quantity received uu noqonayaa. Okay marka ayaan haddaan soo tijaabino waan geli ID-ga intuu nagu joogo waa 30 kii markii dhigta gelinay masax baan helay 4 xabo marka waxaan isku darayaa 4tii xabo ee imika naloo keenay iyo 400 iyo 34 noo sii taale isku daraya marka quantity on hand-ga inta ay noqonaysa yani 4 taba waxaa lagu darayaa 434 noo sii taale يعني أفرتنا يمكن الله كان قدرنا مركب حين نقطة أفر بقول صدق نستير بالنقطة. أوكي. مركب حاجة شغالة لما إنه حاسمين إنه عندون إنه مركي عن سيدا أقرّه قفك فندر كان مجلسة إنه النصاب معلومات يسأل إنه النصاب صاروا مركب أنت ما يرترتيبين مركب كتب بس وصل الله منه. اوكي marka markaan saan u yar habeeyay wax kala ma sameeyo waxaan sameeyay vendor ID baan xagga sare dhigtay city on si address-ki iyo mobile phone-ki xaggana order ID-gi iyo reference number-ki iyo date-ki iyo notice-ki inta aan sameeyay marka waxaan doonaynaa marka aan qofka ID-giisa vendor-ka ID-giisa markaan sida u qorno waxaan inuu isagu toos isugu buuxiyo macluumaadkan kale. اوكي marka maxaan sameeynaa vendor ID-ga waxaan u bedelaynaa combo box waan u bedelaynaa marka waxaa la change combo box kadib markaan combo box u bedelo combo box-gan meesha uu ka soo qaadayo source-ga baad xaggan ka soo dooranaysaa marka row source meesha ku qoran tahay tag row source meesha ku qoran tahay tag kadibna waxaad tagaysaa vendor-iski tag. Okay kan iska xir marka waxaad soo dooranaysaa vendor ID-ga iyo first name-ka soo dooranaysaa kadibna save baad leedahay oo iska xidhaysaa marka intaas samayso format-ka marka imato xaggan column-kan 2 ka dhig xaggana maxaa ka dhigtaa ka hore 0 ka dhig ka labaadna 5 ka dhig marka. Okay marka haddaan saa ku tuso markaan qofka saa soo doorto waa magacyadii ay yimid waa iminka qofkaan macluumaadkiisan xareeyay qofkaan city-giisa address-kiisa iyo mobile phone-kiisa qofkaan ku soo qoray toos buu xagga isku soo qoray ka city-giisa uma xareynay marka waxay ka dhigan tahay qofkan macluumaadkooda dadka mayna soo xareynin bas city-ga bas aan soo xareynay address-ka haddaan soo sheegno iyo mobile phone-kan halka ku soo qori lahaa. Okay markaan intaas sameeyno sidaas si la mid ah waxaan doonayaa imika halkana inuu item-ku marka aan isagana sida u doorto inuu isku kayso buuxiyo cost-ga inta ugu jooga iyo inta available-ka inuu isku soo buuxiyaan doonayaa marka dariiqadan imika baan maraynaa iyadana tii aan imika baan maraynaa marka waxaan tagaynaa item ID-ga tag kadibna combo box u bedel. Okay combo box marka u bedesho waxaad imataa halka data-da imo kadibna row source-ka imo marka waxaad soo dooranaysaa items-ka add kadibna kan iska xidh item ID-ga iyo item name-ka
soo dooranaysa save baad leedahay marka kan iska xidhaysaa marka intaa samayso halkan formatka imo xaggan columnkii 2 ka dhig xagganna waxaad ka dhigtaa ka hore 0 ka dhig ka labaadna waxaad ka dhigtaa 6 ka dhig okay marka aan eegno markaan saa u eego baastadii oo taa markaan muxuu soo inta leega siiyey iyo inta ii taalla inta uu soo buuxinaya haddaan kan doorto bariiska isaga qiimihiisa maana soo qoranin laakiin inta taalla oo ii qoran tahay qiimihiisa haddaan soo qorto halkan buu soo qori lahaa okay marka taraan yaraynaynaa ballaca dheer kadib halkan auto ay ku qoran tahay horta iyada ku duldhufo item ID-ga kadibna halkan auto waxaad ka dhigtaa 3 ka dhig marka okay xaggan kalena waxaad ka dhigtaa format delimted ka dhig okay kadib save de kadibna view da marka parameter marka okay marka caadi sida u saxbi okay marka maxaa noo dhiman ID-gaas sidoo automatic order ID-ga sidoo automatic tiradii aan doonino intuu nooga bilaabo oo noogu wadi lahaa iyo reference numberka iyagana sidoo uu toos automatic ugu wadi lahaa okay marka kan intaan save nidhaahno yes baan leenahay okay halka bidjuulaha yes baan leenahay kan iska xidhana marka waxaan tegaynaa kan intaan tagno yaan iska soo masaxaynaa kan waan tegaynaa waxaan iibinay wayaan waxaan iska masaxaynaa marka okay marka intaan sameyno yaa waxaan tegaynaa halkeena caadiga ahayd query-gaan tegaynaa query design baan tegaynaa kan iska xidhaynaa marka SQL baan tegaynaa kadib maxaan leenahay marka waxaan qoray waxaan idhi table-ka la yiraahdo purchase invoice head table waa kan table-ka la yiraahdo purchase haddaad wax khaladana iska ilaali invoice head table la yiraahdo waxaa ku jira column la yiraahdo order ID-ga waxaad iga dhigtaa counterkiisa waxaad iga bilowdaa 101 intaad iga bilowdid markiiba hal igu kordhi okay marka waxaan leenahay save ama haddaad doonto waad save garaysan haddaad doonto iska dayn markaan doonayna save gareeyo marka waxaan leenahay run baan leenahay kadib sidaa uu noo run gareeyay marka kama iska xidhaynaa marka noo waan leenahay ma save garaynayo anuma doonayna save laakiin haddaad doonto iska save garaysan dhib male okay marka kii aan soo furano daawo marka haddaan qof wax ka iibiyo 101 buu iga bilaabay okay sidaa buu igu wadayaa marka maxaa noo yimid reference number-ka noo yimid reference number waxaan leenahay kan waxaad ugu kordhisaa xabad adna noogu sii kordhi 101 Soomaal 102 nooga dhig markuu kan 102 yahayna 103 nooga dhig sidaa waan leenahay marka maxaan leenahay design view imo kadibna halkan intaad ku dhufato waxaad imataa datada imo kadibna default value waxaad ka dhigtaa halkan intaad ku dhufato waxaad tiraahdaa order ID-ga +1 order ID-good xabadu noogu dartay okay order ID-gu xabad noogu ziyaadi okay waan leenahay marka waxaan leenahay order ID-gu xabad noogu kordhi okay misaan soo koobiyo okay marka save aan idhaahdo kadibna view aan idhaahdo wuxuu sameeyey halkan 101 buu ahaa 102 buu ka dhigay okay marka waxaan sameynaynaa kan iyo kanba si aan waxba laga bedeli karin marka soo dhigaynaa kaas iyo kaaba si aan waxba laga bedeli karinin horta kan xagga calaamadda lacagta ee noo saaran haddaad doonto inaad iska qaado halkan caadi waad baratay marka inta calaamadda xagga iska soo qaadaysaa halkan datada imo kadib waxaad tidhaahdaa enable node locket no yes iyadana si uu maartay uga highlight-ka uga qaado kan yes bale kan no wale okay marka labadan iyaga automatic isu turnayo oo arkaysa xakam bedeli karayo marka insha Allah cashirkeena maanta halka ku joojinaynaa inta kale noo hadlayba noo cashirka dambe haduu leeyahay ku dhameystireenaa marka cashirka dambe la soo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh